marka hore waxaan aad iyo aad ugu mahad celinayaa dhammaan mas'isharafta ka kala timi dawladaha dariska ee islaadiintu hogaaminaysay iyo dhammaan Soomaaliland ee madax dhaqameedka iyo siyaasiyiinta iyo aqoonyahanka iyo waxgaradka ay hogaaminayeen casuumadan aanu dhignay ka beel ahaan iyo garashada beeshani garatay inay caleema saarto Suldaan Cabdirasaaq Maxamed Faarax sidaad u soo sharafteen ilaahay ha idin sharfo waan idinka mahad celinaya anigoo ku hadlaya afkii suldaanka guud ee beelaha habar jeclo Suldaan Cabdullaahi Suldaan Cali oo ay ahayd inuu yimaado laakiin aynu ducaynayno ilaahay inuu caafimaad sareecana siiyo xogaa xanuuna ay jireen inaan kelmadiisii halkan ka idhaahdo oo ayaan markii hore isu istaagay mahadnaqa aan ugu mahadnaqo sidaa u soo sharafteen caleema saarka waxaan u malaynayaa halkan kaftan badan baa ka dhacay qolada garxajis baa ugu kaftan wanaagsanayd maanta waan uga mahad celinayaa anigu doorashadii hadalkaygu wuxuu ku ekaa doorasho campaignkii ka horo inta dambe oo dhan raali gelin un baan bixiyaa horta iyaga lama kaftamo waan raali geliyaa wixii dhacay waxaan leeyahay walaalayaal horta ilmaadeerayaal dee laba qolaa tartamayso idmaanu kala jeclayne qoladan wax leeyahay sheekhi baa kaga tagay kiishadii oo kiishada hafreen baa lahaayo kiishadiina furmi weyday horta waan idin raali gelinaynaa waaba furmi lahayd intaasun bay ahayd waa la kaftamayaa waxaan u malaynayaa maanta dee salaadiintiina waa barteenoo guutooyin bay noqdeene horta haddii qoladii bahawgaas maanta ay aad u badan tahay waannu soo dhowaynaynaa hadday leeyihiin qolaannu hor taagnaan jirto aanu jiidhaynaana waa soo dhowaynaynaa in nala baaso baabuurka xawaaraha ku soconaya waa la oggolaadaa inuu ku dhaafo de haddii kale waa isku dhacaysaan waa u bannaynaynaa xoogaa malaa waxaa ku jiray odayga halkan ka gabyeyna qoladeeda muuse abakor iyo qoladii nuuxna xagga dambe u geliyey oo weliba si yar buu u sheegay iyagoo war saldanaddu haddii la doonayo inay socoto dee xagga hore inala soo dhigay ahayd aad iyo aad baan horta runtii dee haddii kaftan dhacay iyo haddii la hadlayba waxa weeyaan hadal qurux badan baa ka yimid waxaan si gaara ugu mahadnaqayaa malaa raggunbaa aad loo mahadnaqaya madaxa dhaqameedkae gabdhaha iyo haweenweynaha halkan fadhiya iyo hooyooyinka soo sharfay madashatan ee weliba sida cajiibka uga shaqaynayay iyo namadii fardaha fuushanaa iyo saxaafadda iyaguna mahad gaara ayay leeyihiin runtii oo waan u mahadnaqayaa in la ilaawana maaha waxaan u malaynayaa dee wakhti badan ma hadhin waa lagu raagay waxaan ku soo dhowaynayaa suldaan xasan suldaan cabdullaahi maadaama ay gebagebe tahay suu kelmaddiisii u yidhaahdo